xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa waxay maanta cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ay ku soo booqdeen dhaawacyadii ku soo dhaawacmay rabshadihii habeennimadii Khamiistii la soo dhaafay ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Hargeysa. warina waxa halkaasi faahfaahin ka bixiyay inta uu yahay dhaawacii ku soo dhaawacmay rabshadihii ka dhacay magaalada Hargeysa 16 bishan iyo waliba dhimashada uu sheegay in hal qof tahay agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Hargeysa Axmed Xaaji Cumar Askar. dadka tiradooda waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 8 inay ahaayeen hal qof oo markaa geeriyooday oo gabadha ayaa jiray waxa kale ugu cuslaa wiil isaguna markaa ay xabadu maartay calooshii inta ka dhacday oo isagu ahaa kuwa ugu culus habeennimadii ayaa qaliin loo sameeyay isla habeennimadii markii la yimid shaqaalaha cusbitaalku waxay ku jireen ilaa intii doorashadu bilaabantay waxay ku jireen standby oo heegan bay ku jireen markaa runtii ma dhakhaatiirta qaliinku standby baa wixii ku baxaya ee markaa ama dawa ahaato ama ha ahaato farsamo waxa weeyaan cusbitaalka ayaa ka masuula. sidoo kalena waxa halkaas iyagu hadal ka soo jeediyay wasiirada wasaaradaha madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi duulista hawada iyo gaadiidka cirka Farxaan Aadan Haybe iyo waliba arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Dr. Saad Cali Shir waxaana Ilaahay uga bariyeen intii ku dhimatay rabshadahaasi in uu Ilaahay u naxariisto ehelkii qaraabada ka baxeen samir iyo iimaan ka siiyo intii ku dhaawacantayna caafimaad degdeg ah siiyo. xogahaanu hayno rabshadaha ka dhacay caasimadda qayb ka mid ah iyo magaalada Burco qayb ka mid ah iyaduna ilaa iyo hadda waxaa ku qudh waayay ama ku geeriyooday 3 qof oo rayid ah waxaa ku dhaawacmay 19 ciidamada qaranka ka mid ah ee amniga ka shaqeynayay dhaawacyadoodu kala duwan yihiin oo badankoodu u badan yihiin dhagax ama aan iraahday ilaa 18 askari waxa lagu dhaawacay dhagxaan lala beegsaday qaarkood nin sarkaal ah daanka la jabiyay mid kale madaxa laga jabiyay waxa jira hal askari oo isaga xabad lagu soo toogtay aqal laga soo toogtay oo adinka ay kaga dhacday xabadaas uma inaan baahnayn duruuftaas oo kale in lagu dhacdo waayo waxaynu ku fadhinaa dalkani ku nagiyahay waa amnigiisa weeye cid walba dambu yahay ragga musharaxiinta ah ee sharaxna ku doonaha noqday cod bay nagu leeyahay iyadoo aan natiijadii la hadda la sheegin oo inaan ogeyn midkeena ogeyn cid u xil saaran ay tahay komishanka doorashooyinka qaranka nin kastoo musharaxi cod bay nagu lahaa farta inaynu siino cid kastaana cid ay doonto xaq bay u lahayd inay siiso laakiin waxaan leenahay naguma laha inaynu qalalaase iyo maaragtay deganaanshiye la'aan iyo dadkeenoo dhaawac soo gaadho hanti burburta waxaasi waxayna gelinayaan khalkhal waxay gelinayaan nolosheenii aad iyo aad baan uga xunnahay dadka dhibaatadu ka soo gaadhay rabshadahaas ma ahayn runtiina dhacdo qof kaliya kama maarano qof dhaawacan mayna kama maarano qof inaga dhintayna kama maarano waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga rajaynaynaa weydiisanaynaa intii ku geeriyootay inuu naxariis janno ka waraabiyo ehelkooduna uu ka siiyo samir iyo iimaan intii ku dhaawacantayna mataqaana uu siiyo caafimaad si degdeg ah insha Allah bin Ilaahi Kariim. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.